magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi maxamed axmed ramadaankii hore ayaa waxaa laygu sheegay inaan sonkor qabo anoo Uganda joogo daawo waa la ii qoray laakiin daawadii anigii oo qaataa ee bahashii way controlling weyn ama habeenbarkii anigoo hurdaan dareemaya inay dhacsan tahay ama inay aad u kacsan tahay markay kacdo waa roon tahay marka ay dhacdo waliba hadday level 5 ka hooseeyo gaarto cabirka qofku uu miyir beeraya anigoo aad u xanuunsan ayaan ka soo tagay Uganda 27kii ayaan Soomaaliya imid bishii 11aad oo sanadkii la soo dhaafay magaalada Burco la yiraahdo oo markaa aan deganaa bil iyo bargure kamaana bixin anoo daawadii qaadanay abtaad ma jirno cunto waan cuni waayay waan socon waayay waan dhaqaaqi waayay si kastaba yeel waxba waa qabsoon waayay 15 bishii la soo dhaafay ayaan waxaan u soo hooyday anoo Burco ka imid garow subax 16 ayaan aniga doctor Jamal waxaan iska soo raacnay anagoon shaqoonin garow rakaab baan ka wada ahaan gaari marketu oo galka u soo socday halkii baan ku sheekaysanay wuxuu ii sheegay inuu jirooyin sokorta ka mid tahay uu daawadeeda hayo waan u sheegay inaan sokor qabo waxaan ugu yiri waa hagaaga caawa hotelkaas magaalada ku yaala Gaalkacyo baan ku degayay igula deg aan wareysanay hotelkii baan ku degnay way u wareystay wuxuu ugu yiri waxaan ku qoray wada baahanka 2 bilood oo daawadeeda 2 bilood daawada marka qaadatid abitaadkii ka xirnaa marka daawada bilowdo wuu ku furmaya insha Allah jirkaaga ama aragaaga uu isbedelaya macay marka runtii qolof baan wuxuu qolofnimada ka baxaysa marka daawada bilowdo 2 biloodna oo daawada wadina xanuunkan uu kaaga guuraya daawadii baan subaxii sii qaatay waana sii dhaafay waxaan Gaalkacyo kumaana hakan waxaan sii aaday shishay iyo dhinacaas ilaa iyo Beledweyne iyo Dhusmarabi carradaas bil markaan daawadii qaadanayay wax badan isaga gartay mid horena aan joojiyay sokorteeduna aysan marna dhicin ama aan khatar gelin ama aan suuxin mishi markay dhamaatay baan dib u soo laabto Gaalkacyo ugu imid si aan daawada u qaato daawada baan mar kale qaatay bishii labaad ayaan hadda 7 casho daawadii wadaa ninkayga maxaan ku raabdaa aan awal cuntada cuni waayay oo dhaqaaqi waayay cunto cunideeda waxay gaartay hadda inaan dareensanahay isleeyahay malaha faras hadii lagu siiyo waa dhamaan kartaa inta cuntid yani waxaan markaan faras ku soo hadal qaadanayo sacba waa oran karaa sacba ka dhig faraskiisa la yaabay hilibkiisa lama cuno isaga waxaan aaminsanahay daawadaasi sidii uu jaamac u ballan qaaday in caafimaadkaygii sokortiina 60% ugu yaraan way guurtay 40 kana waa 3 usbuuc ee hartay baan aaminsanahay insha Allah inaan ku daawoon doono abtaadkayga aad u fiican yahay aragaygu uu soo noqday xoog baa yeesho waa dhaqaaqi waxaasoo dhan waa mahad Ilaahay fadliga Ilaahay baa lagu helay laakiin Ilaahay ugu siiyay ugu gaarsiiyay daawada Dr. Jamal uu qoray waxaan rajaynayaa dadka maqlaa fariintan inay ka faa'iideystaan oo sokor qaba daawadan waa la hubaa waa xaqiiqo waa waxtar waa daawo billahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم horta caafimaadka qaadka ee daawadan aniga sameeyay Soomaaliyeed shaybaarka wax ku baara oo wareysiga qofka caafimaadka qaadka ee daawadan ana sameeyay hada wixii nasiibku lala kulmiyo dad badan koob iyo 30 qof marayaan xagga taranka buushana Ilaahay baa iska leh hada wixii nasiibku lala kulmiyo oo aan sahlo waan ka faa'iideynaa billahi kariim inaan kaliya ma aha intaas qof baan ayaa laakiin hada wixii ka dambeeya waa record gareynaya insha Allah yaay aan soo dhaweynaya qaacidada sameeyay وطيب لك فتوى مربع وحان هذا منع الجسة عن الاستمتاع فلياتي شجرة عند الجامعة بسرعة يوروبانو درا داوين كيغا وحان درا بوساس waa laga helaa garow waa laga helaa dalkaayo waa laga helaa guldugo waa laga helaa في أي مكان وأنا إلهي فليس يقولون إذا أنا شيء باركيجا أما وريسي وشيء بارك مخبر ووريسي وقفنا أو بس كوا صدق إنه فيش كوا صدق إنه ولا بنو
سنكرت وجنع وشغين وياه عافمات كان قادر كان بهي داودنا أنا سميه يسود وين ولا شغين وراك الصومالي السلام عليكم ورحمة الله خلافنا بكاو حلقة جلس حرير يا لحدنا يلا فروع تضبط لحدنا يلا كنتم يسديد سجاشن يكون أما سامتل 51 73 73 السلام عليكم ورحمة الله